Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Abukaate Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa dhinacyada Somaliland iyo Puntland ka dalbaday inay si nabad ah ku xaliyaan colaadda u dhaxaysa ee la xiriirta xiisadda ka taagan deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool. Waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka in xilligani lagu guda jiro bil barakaysan, sidaasi awgeedna aan loo baahnayn in la daadiyo dhiig qof muslima. in aan baaq u diro dhinacyada Somaliland iyo Puntland in ay nabad ku xaliyaan wixii khilaafa iyo faraq ah ee u dhaxeeya bil Ramadaan baa lagu jiraa, bil cibaada lagu jiraa. lama baahna in dhiig Soomaaliyeed la daadiyo, lama baahna in dhiig dad muslimiin ah la daadiyo. maanta way aragban 20 sano u nahay dhibaatada uu dagaal leeyahay in wiil ku dhinto mooyaane wax uu kordhiya aanay jirin, cidna ayna ku macaashin. Soomaaliya way kala adkaan lahayd 20 sanadood. dagaal waxa la ogaaday in lagu kala adkaan karay. walaalayaalow wixii nabad lagu helayo hal la iska daayo in dagaal iyo cunf lagu raadiyo. waxa kale oo aan dhinacyada u soo jeedinayaa in hadallada xanafta leh nac abuurka ah kala dilaya dadka Soomaaliyeed ee tor iyo xididka ah la iska daayo, laga waantoobo. Soomaaliya waa wada gob, waa dad wanaagsan, waa dad muslima oo sharfan. quraankeena kariimka ah baa sheegay wala tadkaramna bani aadama, waa dad karaamaysan weeye. marka karaamada iyo sharafta iyo Soomaalinimada iyo nabad jacaylka inagoo ka duulayna odayaasha Soomaaliyeed iyo duqada ismada salaadiinta ha loo kaco nabadda, nabadgelyaha lagu xaliyo wixii dhibaato ah jira. waa mahadsantihiin. Maxamed Macalin Mustafa, Kalson TV, Muqdisho.